wararka kale daawud ee soo gaadhayna waxa kamid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Trump ayaa qorsheynaya sidii ciidamada ilaalada qaranka ugu diri lahaa magaalada Chicago ee gobolka Illinois si ay u xakameeyaan dambiyada dilka iyo boobka ee ka dhacay magaaladaasi. Duqa magaalada Chicago Mr. Johnson ayaa ku tilmaamay qorshaha madaxweynaha Mareykanka ugu diriya ciidamada ilaalada qaranka magaaladaasi mid xaalad abuur ah, isla markaasina uu awoodiisa maamul si khaldan ugu adeegsanayo, taasoo ay caddayn tahay in dambiyada ka dhacay magaalada Chicago ay hoos u dhaceen xilligani. xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi ayaa dhaleeceeyay inta badan u soo jeediyay qorshaha uu ciidamada ugu dirayo magaalooyinkaasi madaxweyne Trump ayna awood ku leeyihiin xisbigooda iyagoo ku tilmaamay arrintaasi xaalad siyaasadaysan oo Trump uu ku muujinayo awoodiisa iyadoo aanay jirin wax cabasho oo ka soo yeedhay maamulka gobolka. Geesta kalena madaxweynaha Mareykanka ayaa hore ciidamo ugu diray magaalada Washington ee caasimadda dalkaasi, kuwaas oo la sheegay inay ka fureegayaan suuqyada magaaladaasi si ay u ilaaliyaan amniga guud ee magaaladaasi. xukuumadda waqooyiga Kuuriya ayaa maanta tijaabisay laba gantaal oo nooca difaaca cirka, iyadoo tijaabadaasi goobjoog ka ah hogaamiyaha dalkaasi Mr. Kim Un-jong. wakaalada wararka ee waqooyiga Kuuriya ee Kenya ayaa intaasi ku dartay